quraac yara saaka laga soo tuuray waa rooti iyo ukun qajaar osti alaab waa kana labadaas ukunta iyo labada rootiga iyo halkaasna waa osti allayle quraacda marmar baa waxa la iska dhigaa dadka deriska quraacdooda kala la samaystaa maalin taada la samaystaa canjeelada shaah lagu radsada maalin wax kala la iska suubsada hadii alla ku ogolaado waa kana qajaarka horta mididan cajiibka ah baaban ku jartaa waxay ka dhigaysaa wax khafiif ah oo dhexdana qurux ka ah oo dhexda ka buurnayn marka si kale oo aan u samaystana way jirtaa qajaarka marka rootiga la saarayo waan tusi doonaa insha Allah labada ukun baan halka ku jabsanayaa labadayda ukun markaan jabsadana rootigaygan ku sameeyay waaba intaas 5 daqiiqo soo dhawaada milix baan ku darsanaya ana wax dhanaan iyo wax macaan iyo wax shiilan iyo wax udgoon waxaasal waa jeclaa soo dhawaada waxa wadaad ducada dalka xaqiina dadaalku xaqay deeqa ilaahay ba bixiya daawasho wanaagsan waa kana ukuntii baan taambirta dabka saliid yar kula shubay baan ukunta ku gadeeyaa wuxuu dhanba waa iska intaas rootigii ukunta waligeena iskor saarsan jirnay qaab kale loo sameeyana way jiraan insha Allah maalmaantay aan xoogaa firaaqa leeyahay quraacda aan raba inaan samaysto idin la wadaagi doona baydnillah halkaasna waxa ku shubtay waa suuga yaro macaan suugooyinka aan walwalaaq jiro caanaha ahayd laakiin midaan dawladan ka soo gatay dukaanka ka soo gatay gabadha qajaarkii baan saaray qajaarka markaan saaray ukuntuna iska sii karsanto ustigaas wuxuu sameeyay qajaarka iyo wuxuu isku dhalaalinayaa iyo rootigu isqabad siinaya waa koolo hada waana caano waa ku anfacuya rootiga walbal saar jira ustiga maano marka waa kasa rootiga iyo waxa isqabsanaya qajaarka ustigaas koolo u noqonaya suugadiina waa marsan tahay isku gadi gidi xagga u gadi xagga ka gadi xagga ka laab xagga ka jeedi xagga u jeedi riix anu waxa jeclaa dhexda inuu ka bisil yahay anigu adduunka wax dhexda ukunta iyadoo dhexda ka qoyan la cuna adduunka u nabca wuxuu dhawaxa dabka hays arkaan maanta dhan waa dhibaataynaya ka warasa u ceejinayo waa kaas gadi iyo rog asaan markuu ku noqdo saxankaaga soo qabso saas dheh waa kaas shar gudban shaydan xijaaban dabkana marka hore wax saarsi iska gaabe asalba dabka iska gaabe qaadi fargeeta la soo bareer magaal iska dhig horta maalin kasta gacanta maxaa ugu cunta maanta fargeeta ku cun oo alaab shiilo dariska isu okaysi dariskaasaan u samaystay dariskaygu waa cadaan biyoodan uma arag iska leeyahay laakiin meeshaas uma ka keenaa waxyaabaha noocaas aragtaan waa waxaan Norwegiga iyo meelahaas maqaayadooda markaa dhex taag naan jiray muddo badan baan maqaayada cadaan leeyahay ka shaqayn jiray habartu markay daasho intaan ku tuurata intay meel fariisato say u shaqaynayso salaamu alaykum waraxmatullaah